أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga igu xiran famskayga friendiskayga waan soo laabtay. cadow baa I helay waa idin soo gashay. dib baan waxaan usoo gelinayaa wixii iigu jiray account-kayga oo dhan waan save garaystay waa idin sheegay. dib baan ugu soo wada celinayaa insha Allah. shan toban baa inaan rabaa inaan usoo gasho. marka maxaan ku dhahaa hawl badan baa isugaysa. cadow baa I helay jabsaday account-kaygii dadkaygii oo maxaan ku radaa ii ahaa subscribeska ma jiraan. maxaan ku radaa viewskaygii ma leh, like-gaygii ma leh, waxaygii oo dhan ma laha. cadowga allaha naga qabto. dad cadow ah ayaa jiro. ilaahay cadowga ummadda ka qabto. waxa weeye iska ilaaliya adinkan reer YouTube-o iyo reer Facebook-o. dad badan waxaa jira cadow ah oo ummadda ku maqan oo aan la ogeyn la iska jiraynin. marka maanta waxaa weeye walaalahayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idiin hayaa cashew milkshake ayaan ka samaynayaa. cashewga ma shiidna, roastedna ma aha, ma dubna, waa isagoo qolofta keliya laga qaaday. soo waxaa garatay ma aha. marka budo ma aha, kan laguma shiidi karo. waxaan ku shiidanayaa mashiinkana waxyaalaha daraaga lagu shiido oo coffee mashiinka loo yaqaano ayaa waxaan rabaa inaan in yar ugu shiito haddii alla idmo. marka waxaa weye waqtiga qaadanaysa intaan ka dhamaynaya intaas. marka waxaa weeye walaalayaalow aan isa soo laabanay. waan shiitay, waa ujeedaan intaan ka maqnaan waan shiidayay. waa ujeedaan walaalahaygo waan shiiday. budaan ka dhigay cashewgii. halkan waxaan ku haystaa coconut, waxaan leeyahay cocoa powder. halkan waxaan ku darsanayaa 3 malqadood oo cocoa powder ah. أنا 3 malqadood oo cocoa powder ah. okay, waxaan ku shubanayaa cashewgii. cashew hala beera cashew arka aan tusay saliidu leeyahay ka waran qoyaanu noqdo mujada saliidu leeyahay. saliidu leeyahay. waa ku shubtay cashewgii. cocoa powderkii milkshake, cashew milkshake ayaa la yiraahdaa. milkshakean aan samaynayo caanihii okay. alaabtan waa healthy, isla ogaada aad bay healthy u tahay. saddex koob wax yar ka dhimanaya maalinta. waa intaas caagi empty oo noqday caanihi. 3 koob dheer buu qaadaa. marka maxaan samaynayaa waa shiidaya, isku shiidaya insha Allah. bismillah kariim. waa idin sheegay dadka maxaan ku idhahdaa leh restaurantiyada dadka leh oo iyo dadka cabitaanada shiida iyo dadka milkshake-yada iyo maxaan ku idhahdaa meelaha dadka maxaan ku idhahdaa lacagtana ay tagaan ha ka faa'iidaystaan, alaabtan ha samaystaan.
fiirinaya maanta lama miirmiiraayo waa milk shake qabow haddaa aragtiin waa yaabaysa caanihii aniga sonkor kuma daraayo qofkii rab sonkor ku darsan karaa laakiin ilmaha dib bay kaga darsanayaan oo idiin sheegay laakiin aniga hadda sonkor kuma darayo sidiisan ku cabaayaa reer sonkor marka sonkorta halkaasaa u dhigayo ka ilow sonkorta inaan usoo dhigo so healthy sonkor qofkii raba isaga jirtaa على كيفك سكر هذا كدر سنيسد كل سكرته كم عن هاي لكن أنا كم در سناي وعدين شيء I don't want sugar سكرته سكرافة ما في مات معها سكرته سيدي سواء كعب بكرته هكذا sidaasa ku cabi kartaa laakiin raarsh sonkorta ha ku darsadeen ha ku macaaneysteen because cocoa powderka waa iska coffee waa qaraar ma og tahay marka qofkii sonkor raba isaga jirta marka oo sonkor ku darsanayo ma fahamtay dada qaxwaha qabo qaxwaha ku caba qaraarkiisa ogaada sonkor qasab ma aha laakiin qofkii raba sonkor brown sugar ayuu ku darsan karaa brown sugar taan haddaan kusoo shubtay mar dhaweyd brown sugar uu ku darsan karaa waa ujeedaan brown sugar ama sonkorta cad qof walba tuu haysto soo waxaa garatay ma ah haata kalif nafs ilaa wascahaa okay waxaan ku darsanayaa qorfe udgoonu kaaga dhigayaa qorfaha haddana waa dawaa waa ogtihiin dadka sonkorta qaba sonkortuu dejiya waa ogtihiin qorfaha waakaasaa maxaa ka qurux badan beautiful see wax ka qurux badan bal adigu sheeg maanta bal adigu wax ka qurux badan sheeg yaa ma jiraan wax ka qurux badan ujeedaan كوكوغان u baahnahay maya inta iska geli hare shoogan intan yar u baahnahay yar baan ka reed wax kale la damacsanahay insha allah waakaasa haddee walaalahayga waa idiin soo laabtay dadkaygii sheeriskayga ahaa oo ii sheergareeyey awal waxaan leeyahay dib iigu soo laabta 355 qof baan haystay waxaan leeyahay dib u soo laabta walaashin xamraa waa idiin soo laabatay adinkuna dib iigu soo laabta dib iigu sheer gareeya sheer kalena waa uga baahnahay dadkoo dhan walaalahaygoo dhan walaalaha muslimiinta walaalaha soomaaliyeed everybody welcome to my channel welcome all of the world people my channel sister Hamra channel welcome open hand qalbi furan gacmo furan waji furan baan ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay walaalayaalow dib iigu sheer garee waxyaalo badan oo wanaagsanna waa idiin wadaa fiidiyoyadaydii kuwa cusbaa oo maxaan ku idhaahdaa aan hayo oo badan baa jira aan soo sii daynaya insha allah kuwii horena waa soo gelinayaa ma idiin sheegay 5 10 inaan usoo gasho weeye sababtoo ah dad badan ayaa ka faa'iideysan jira janaalkayga ku xirnaa saaxiib la ahaa families friends everybody ayaa soo maxaan ku daawan jiray even dadan ii sheer garayn ayaa daawan jiray laakiin waxaan leeyahay dadkaas iska daaya xaasidnimada lacag idinkama joogo sheerta kaliya iigu dhufta waa walaashiin muslim ah maxaan ku idhaahdaa soomaaliyeed
anigu dadkan af garanayo muhiimadda ii leh inta aan af garanaynin hadday muslimnimo ay ku sheer garaynayaan oo dee ka faa'iidaysanayaan gaal iyo muslimba waa u bannaan yahay janaalkayga waxaa weeye haddii laga faa'iidaysanayo qofka waxa faa'iido leh keena way wanaagsan tahay in la soo dhoweeyo marka waxyaalo badan oo wanaagsan oo idin anfacaya naftiina anfacaya nafta reerkiina anfacaya nafta maxaan ku idhaahdaa anfacaya caruurtiina gabadha anfacaya face maskayaan sameeyaa waxaan sameeyaa anti engine ah waxaan sameeyaa waxyaalo badan marka oo healthy ah runtii waan soo dhaweynayaa waxaan idin leeyahay welcome to my channel share comment subscribe thumb up fadlan